وتلامنتين أصحابتك سؤال هذا برنامجكنا 1 by 1 oo nagu soo qaadano wararka iyo warbixinada ugu dambeeyay waxaan eegi doonaa wararka ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga FIFA oo soo saaray abaalmarinada xilli ciyaareedka iyo sidoo kale ciyaartoyda u tartamaysa ugu dambeyntiina waxaan eegi doonaa kulanka ugu muhiimsan ee caawa la ciyaari doono kaas oo ah El Clasico-da horyaalka wadanka Talyaaniga ee Serie A-da ugu horeyntii hadaynu ku bilowno xiriirka kubadda cagta FIFA ayaa waxa uu soo saaray abaalmarino ama 4 abaalmarino kuwaas oo sidoo kale uu soo saaray liiska ciyaartoyda iyo sidoo kale tartamayaasha liiskaas haddaba abaalmarinta ugu horeysa ayaa waxay tahay abaalmarinta ay FIFA bixisay ee The Best taasoo la guddoonsiiyo goolhaye ugu fiicnaa xilli ciyaareedka waxaana jira 5 goolhaye kuwaas oo tartami doona abaalmarintaas waxayna kala yihiin goolayaha xulka qaranka Argentina iyo sidoo kale kooxda Aston Villa ee Emiliano Martinez kaasoo ahaa goolhaye ugu fiicnaa koobka adduunka sidoo kale ku guuleystay abaalmarinta goolhaye ugu fiicnaa koobka adduunka sanadda 2022 ka dhacay wadanka Qatar ciyaartoyga labaad ayaa waxa uu yahay goolaha xulka qaranka Belgium iyo sidoo kale kooxda Real Madrid ee Thibaut Courtois kaasoo isaguna kooxda Real Madrid kula guuleystay koobka Champions League sidoo kale ku guuleystay goolaha ugu fiicnaa qaaradda Yurub xilli ciyaareedkii la soo dhaafay halka goolaha saddexaad uu yahay goolaha xulka qaranka Morocco iyo sidoo kale kooxda Ishbiiliya ama Sofia kaasoo awooday inuu xulka qaranka Morocco markii ugu horeysay ku hogaamiyo inay gaadhaan semi-finaalka koobka adduunka sidoo kalena galaan kaalinta afraad ee koobka adduunka halka labada goolwade kale ay yihiin labada goolwade oo wada ciyaara xulka qaranka Brazil sidoo kalena oo kale ciyaara kooxaha Manchester City iyo sidoo kale kooxda Liverpool kuwaas oo kale Alisson iyo Ederson xilli ciyaareedkii hore waxa uu kula guuleystay kooxda Manchester City horyaalka Ingiriiska ee Premier League halka Alisson uu kula guuleystay kooxda Liverpool koobka FA Cup iyo sidoo kale koobka Carabao Cup haddaba abaalmarintan ayaa waxay ka dhaxayn doontaa 5 goolwade kuwaas oo kale ah Martinez, Thibaut Courtois, Alisson, Ederson iyo sidoo kale Yasin Bono sidoo kale abaalmarinadii la soo saaray ama tartamayaashii la soo saaray waxaa ka mid ahaa tababarihii ugu fiicnaa xilli ciyaareedka waxaana uu ka dhaxeeya 5 tababare kuwaas oo kale tababare xulka qaranka Argentina ee Lionel Scaloni kaasoo awooday inuu xulka qaranka Argentina ku hogaamiyo ku guuleysashada koobka adduunka markii saddexaad taariikhdeeda sidoo kale waxaa ka mid ah tababarayaasha u tartamaya abaalmarintan tababaraha xulka qaranka Faransiiska ee Didier Deschamps kaasoo isaguna awooday inuu xulka qaranka Faransiiska markii labaad oo xidhiidh ah keeno ama uu soo gaarsiiyo finaalka koobka adduunka kadib markii uu sanadii 2018 kula guuleystay xulka qaranka Faransiiska koobka adduunka sidoo kale xilli sanadda 2022 kana waxa uu soo gaarsiiyay finaalka iyaduna waxaa ka mid ah tababarayaasha u tartamaya tababaraha xulka qaranka Morocco ee Walid Regragui kaasoo sidoo kale noqday tababarihii ugu horeeyay ee kasoo jeeda qaaradda Afrika iyo tababarihii ugu horeeyay ee Carab ah kaasoo loo soo magacaabo abaalmarintan waxa uu ahaa tababarihii ku guuleystay inuu keeno xulka qaranka Morocco markii ugu horeysay taariikhda sidoo kale xulka ugu horeeyay qaaradda Afrika kasoo jeeda kaasoo soo gaadha semi-finaalka koobka adduunka halka labada tababare ay kala yihiin tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola kaasoo xilli ciyaareedkii hore kula guuleystay kooxda Manchester City horyaalka Ingiriiska ee Premier League sidoo kale tababaraha kooxda Real Madrid ee Carlo Ancelotti ayaa isaguna ka mid ah tababarayaasha u tartamaya abaalmarintan kaasoo xilli ciyaareedkii hore ku hogaamiyay kooxda Real Madrid inay ku guuleystaan koobka Champions League markii 14aad kadib markii ay kulamo waaliya soo bandhigeen kooxda Real Madrid halka abaalmarinada kale ay kala hayeen abaalmarinta goolka ugu qurux badnaa sanadda oo loo yaqaano abaalmarinta Puskás waxaana ka mid ahaa ciyaartoyda ugu cadcad ee loo soo doortay ciyaartoyga Kylian Mbappe sidoo kale abaalmarinta ciyaartoyga ugu fiicnaa adduunka ee FIFA ay doorato ee The Best FIFA Men's Player of the Year waxaa ka mid ahaa in ciyaartoy badan loo soo magacaabay waxaana ciyaartoyda ka mid ah ciyaartoyda Lionel Messi oo kula guuleystay xulka qaranka Argentina koobka adduunka Erling Haaland oo kooxda Manchester City xilli ciyaareed aad u fiican la soo bandhigay Karim Benzema oo ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or sidoo kale Champions League iyo horyaalka La Liga kula guuleystay kooxda Real Madrid sidoo kale ciyaartoyda Vinicius, Luka Modric iyo Bellingham, Mohamed Salah, Achraf Hakimi, Sadio Mane, Neymar, Mbappe iyo sidoo kale ciyaartoy kale oo ka mid yahay Kevin De Bruyne ayaa u tartami doona abaalmarintan sidoo kale horyaalka Ingiriiska ee Premier League waxaa la soo saaray ciyaartoydii iyo sidoo kale tababarihii ku guuleystay abaalmarinta ciyaartoyga ugu fiicnaa bisha balse bishani waxay ahayd kulamadii la ciyaaray kadib koobka adduunka markii laga soo laabtay bisha December iyo sidoo kale kulamadii la ciyaaray ka hor koobka adduunka bisha November oo koobka adduunka waxaa la ciyaaray ilaa 3 kulan kadib sidoo kale ka horna waxaa la ciyaaray kulamo balse waxaa hal bil la isku xisaabiyay oo abaalmarinta ciyaartoygii bisha ugu fiicnaa waxaa ku guuleystay kabtanka kooxda Arsenal ee Martin Odegaard sidoo kale tababarihii ugu fiicnaa bisha horyaalka Ingiriiska ee Premier League waxaa ku guuleystay tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta kaasoo aan laga badin kooxda Arsenal dhammaan kulamadii ay ciyaartay bishan haday noqoto horyaalka Ingiriiska ee Premier League dhinaca kale kooxda Arsenal oo toddobaadyadii ugu dambeeyay aad ugu dadaalaysay in la soo wareegto ciyaartoyga
iyo sidoo kale weeraryahanka xulka qaranka Ukraine iyo kooxda Shakhtar Donetsk Mikhail Modric ayaa hadda waxaa la sheegay kooxda Arsenal inay dalab cusub ka gudbisay ciyaartoyga Mikhail Modric. haddaba kooxda Arsenal marka hore waxaa jiray laba dalab oo ay ka gudbisay ciyaartoygan kaas oo gaadhayay 62 ilaa 70 milyan oo euro, balse maadaama mas'uuliyiinta kooxda Shakhtar Donetsk ay dalbadeen ama ay sheegeen ciyaartoyga Mikhail Modric in ugu yaraan qiimaha ay ku fasaxayaan uu gaadhayo ama uu yahay 86 milyan oo euro, sidoo kale labadii dalab ee hore ay kooxda ka gudbisay ciyaartoyga Mikhail Modric ay diideen mas'uuliyiinta kooxda Shakhtar Donetsk. waxay hadda samaysay kooxda Arsenal inay la soo wareegto inay ka gudbisay ciyaartoyga Mikhail Modric dalab cusub kaas oo gaadhaya 70 milyan oo euro. haddaba ciyaartoygan sida la sheegay qaar ka mid ah warbaahinta ay sheegtay kooxda Arsenal waxay shalay ka gudbisay ciyaartoygan dalab cusub kaas oo gaadhaya 72 milyan oo euro, balse ilaa hadda waxay ka warsugayaan mas'uuliyiinta kooxda Shakhtar Donetsk inay dalabkan kasoo jawaabaan. haddaba kooxda Shakhtar Donetsk mas'uuliyiinteedu hadda ay kasoo jawaabaan dalabkan sidoo kale ay ogolaadaan ciyaartoyga Mikhail Modric inuu ku biro kooxda Arsenal. ciyaartoygana waxa uu noqon doonaa ciyaartoyga ugu qaalisanaa taariikhda kooxda Arsenal, waxauna jebin doonaa rikoorka ciyaartoyga Nicolas Pepe oo xagaagii sanadii 2019 ay kula soo wareegtay 72 milyan oo euro, oo kooxda Arsenal isku geyn marka la eego qiimaha ciyaartoyga Mikhail Modric waxay ka bixin doontaa dalab lagu qiyaasay ama qiimo gaaraya 84 milyan oo euro. arrinkaas oo ciyaartoyga ka dhigi doona ciyaartoyga ugu qaalisanaa ee abad ay kooxda Arsenal la soo wareegto ama ay soo iibsato, waxaana jebinaa rikoorkii ciyaartoygii xagga ugu qaalisanaa abad ay kooxda Arsenal soo iibsato Nicolas Pepe oo 72 milyan oo euro ay xagaagii sanadii 2019 kula soo wareegaan. haddana iyadoo taasi ay jirto waxay filayaan taageerayaasha kooxda Arsenal in ciyaartoygan uu guul la gaari doono kooxda Arsenal, sidoo kalena aanay soo bandhigi doonin ciyaartoygan ama aanu noqon doonin siduu noqday ciyaartoyga Nicolas Pepe kaasoo ku fashilmay inuu ka mid noqdo kooxda Arsenal xidigaheeda. sidoo kale ciyaartoygan uu jiray dhaawacyo badan oo la soo wadaagay, sidoo kale kadib markii kooxda ciyaartoygan ay 3 sano kasoo wareegtay la soo wareegidiisa waxay kooxda ama ugu jirtay kooxda Nice. ciyaartoyga Mikhail Modric xilli ciyaareedkan kooxda Shakhtar Donetsk horyaalka waddanka Ukraine waxa uu ku lug leeyahay 13 gool, sidoo kale waxaa jiray inuu 12 kulan ciyaaray oo ciyaartoygan Champions League waxa uu leeyahay 5 gool ayuu ku lug leeyahay ciyaartoygan. haddaba ciyaartoygan kadib markuu rikoodhada soo bandhigay ayaa arrinkaasi waxa uu soo jiitay kooxo waaweyn oo ay ka mid yihiin kooxda Arsenal, Chelsea iyo sidoo kale kooxo kale, balse kooxda Arsenal ayaa kooxda aad u doonaysa ciyaartoygan, sidoo kale isku dayi doonta inay la soo wareegto ciyaartoygan. haddaba kooxda Arsenal haddii ay ku guuleysato ciyaartoygan la soo wareegidiisa ciyaartoygan ama kooxda Arsenal bisha January suuqa lacagta ay ku bixin doonto waxay gaari doontaa 200 milyan oo euro. Arsenal ayaa isku dayi doonta inay soo xoojiso suuqa gaar ahaan weerarka kooxda kadib markuu dhaawac soo gaadhay ciyaartoyga iyo sidoo kale xidigii kooxda ee Gabriel Jesus kaasoo dhawaan ay kala soo wareegeen kooxda Manchester City. dhinaca kale sida ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinada kasoo baxa waddanka Spain, ciyaartoyga Yusuf Makoko oo ka mid ah ciyaartoyda ay doonayso kooxda Barcelona inay ku soo xoojiso weerarka, sidoo kale ciyaartoygan ay jiraan kooxo kale oo ka ciyaara horyaalka Ingiriiska ee Premier League ay ka mid tahay kooxda Newcastle United. ciyaartoygan in la sheegay daadiisa saxda inaan ahayn 17 sano balse ciyaartoygan uu jiro 22 sano. ciyaartoyga Yusuf Makoko oo ka mid ah ciyaartoy ay doonayaan kooxuhu inay la soo wareegaan maadaama ciyaartoygan la sheegay inuu aad u daayar yahay, sidoo kale ciyaartoygan uu dhammaanaya heshiiska uu kula jiro kooxda Dortmund ayaa ciyaartoygan ka hor intaanu kusoo biirin kooxda Dortmund 3 sano ka hor waxaa la sheegay ciyaartoygan inuu galo ama inuu maro baaritaanada la xiriira ciyaartoygan daadiisa. ciyaartoyga ayaa waxaa la sheegay inuu ku dhashay waddanka Cameroon sanadii 2004, waxaana ciyaartoygan soo gaadhay waddanka Jarmalka sanadii 2014 ama kadib markii uu dhashay ciyaartoygan 10 sano ka bacdi. haddaba ciyaartoygan kadib markii uu kasoo biiray kooxda Dortmund sidoo kale ciyaartoygan isagoo jira 2 sano ka hor 16 sano ciyaartoygan uu ka qayb qaatay ama uu ciyaaray kooxda Dortmund ayaa waxaa jiray warar sheegay ciyaartoygan in daadiisa saxda aanay ahayn 16 sano xilligaas. sidoo kale waxaa jiray warar sheegayay in ciyaartoyga Yusuf Makoko kadib markii uu ka mid noqday ama uu ciyaaray 22 jir kooxda Dortmund in isku dayday kooxda RB Leipzig inay la wareegto, xilligaas oo ay doonayeen kooxda RB Leipzig ciyaartoygan inuu maro baaritaanada dhinaca la xiriira daada ciyaartoyga, balse ciyaartoygan ayaa la sheegay inuu diiday. sidoo kale ciyaartoygan ayaa waxaa la sheegay in sanadii hore la helay caddayn ama ka dhalasho kaasoo caddaynaya ciyaartoygan in dhalashadiisa rasmiga ay tahay sanada 2000, taasoo macnaheedu yahay inuu ciyaartoygan jiro 22 sano. sidoo kale la sheegay ciyaartoygan inay magaciisu ku qornaa oo ahaa Yusuf Maxamed. haddaba kooxda Barcelona oo ka mid ah kooxaha aadka u doonaya ciyaartoygan sidoo kale isku dayay ciyaartoygan inay bilaash kula soo wareegaan sanada 2024 maadaama uu xilli ciyaareedka ama xilligaas uu dhammaanayo heshiiska uu kula jiro kooxda Dortmund.
ay kooxda Barcelona wada hadal la furtay ciyaartoygan. Sidoo kale ciyaartoygan wakiilkiisa ayaa waxa uu hadda ku sugan yahay magaalada Barcelona kaasoo wada hadal kula jira kooxda Barcelona. Sidoo kale xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa waxay soo saareen isku aadka rasmiga ah ee koobka adduunka kooxaha. Haddaba waxaa ka qayb qaadan doona koobkan kooxda Al Ahly, kooxda Hilal, kooxda Wydad, kooxda Flamengo iyo kooxda Real Madrid. haddaba waxa uu noqday isku aadku sida tan. kooxda Al Ahly waxay la ciyaari doontaa kulanka ugu horeeya kooxda Auckland City, halka kooxda Sunderland ay la ciyaari doonaan ama ay la ciyaari doonto labada kooxood ee Al Ahly iyo kooxda Auckland City kooxdii soo baxda. sidoo kale kooxda Al Wydad waxay la ciyaari doontaa kooxda Al Hilal, halka kooxda Flamengo ay sugi doonto kulanka u dhaxayn doona kooxda Sunderland iyo sidoo kale Al Ahly iyo Auckland City ka soo baxa, halka Real Madrid ay la ciyaari doonto labada kooxood ee Hilal ama sidoo kale kooxda Al Wydad labada kooxood ka soo baxa. ugu dambeyntii hadaynu kulamada ugu muhiimsan ee caawa la ciyaari doono horyaalka Ingiriiska ee Premier League iyo sidoo kale horyaalka Talyaaniga. haddaynu ku horeyno kulanka ugu muhiimsan toddobaadkan horyaalka Talyaaniga ee Serie A kaasoo u dhaxayn doona kooxda Napoli iyo sidoo kale kooxda Juventus. haddaba kooxda Napoli ayaa waxay tahay kooxda haysa hogaanka horyaalka Talyaaniga oo 44 dhibcood leh, waxayna la ciyaari doontaa ama ka hortagi doontaa kooxda Juventus oo ah kooxda kaalinta labaad ku jirta kuwaas oo leh 37 dhibcood. waxaana yahay farqiga u dhaxeeya labada kooxood 7 dhibcood oo kooxda Napoli ay isku day doontaa inay farqiga ka dhigto 10 dhibcood siina dheeraysato hogaanka horyaalka Talyaaniga ee Serie A, halka kooxda Juventus oo kulamadii ugu dambeeyay kulamadu fiican soo bandhigaysay ay isku day doonto kooxdu inay ka ag dhawaato ama ay yareyso farqiga u dhaxeeya labada kooxood kana dhigta 4 dhibcood. haddaba kooxda Juventus oo kulamadu fiican soo bandhigaysay kulamada ugu dambeeyay gaar ahaan 8 kulan ugu dambeeyay wadayna kooxda Juventus in 8 kulan ugu dambeeyay ay dhamaantood badiso, sidoo kalena kooxda ay samayso ama shabaqooda ilaashato 8 kulan ugu dambeeyay ay isku day doontaa inay ka badiso ama ay ka ag dhawaato kooxda Napoli. halka dhinaca kale kooxda Napoli oo xilli ciyaareedkan horyaalka Talyaaniga ee Serie A ahayd kooxda haysa hogaanka in badan, sidoo kalena kooxdu si dheerayso hogaanka ay isku day doonto sidoo kale caawa inay ka badiso kooxda Juventus ina qabato hogaanka horyaalka Talyaaniga ee Serie A. sidoo kale waxaa jira kulamo kale oo la ciyaari doono horyaalka Premier League iyo sidoo kale La Liga. kooxda Aston Villa ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda Leeds United, halka kooxda Celta Vigo ay la ciyaari doonto kooxda Villarreal.